wiilkii rasuulkeena calayhi salaam ka dhaxaayay aalada TikTok ma ogtahay inuu shalay in la ciiday oo uu ku jiray maxaabiistii Muuse Biixi Cabdi uu markaasi cafiska u fidiyay halka coldoon muddo 10 bilood oo uusan caruurtiisa arag iska daa araga xataa loo diiday inay xabsiga ku booqdaan adeer maalmo kooban ayaan xabsiga kugu sii hayn doonaa kadib ayaan ku sii dayn doonaa si aan isaga sii jeedino indhaha culimada deegaanada Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliyeed ee sheegaya in wiilkii markaasi rasuulkeena caayay aan wali xabsiga la dhigin Muuse Biixi Cabdi ayaa hadaladaasi sheediyay koor inta uusan wiilkan xabsiga dhigin balse ugu dambeyn isbuuc uu xirnaa wiilkan 18 bilood oo xariga oo lagu xukumay kadib shalay ayuu ina la ciiday cafis ayaana loo fidiyay subxaanallah Cabdimalik Muuse Sheekh Oldoon 6 bilood buu xiran yahay kii Nabi Maxamed alayhi salaatu wassalaam ku dhacaayay baraha bulshada isagoo leef ku jira TikTok-ana asagu 20 habeen in ka badan ayuu magaalada Hargeysa raaxaysan gargareeyo oo faafiya muuqaalkan shacabka Soomaaliyeed ha ka ducaystaan cuqubada iyo musiibada ka soo socda maamulka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa oo si xaasidnimo iyo sidoo kale ay ku dheehan tahay markaasi bini aadantinimada ka fog ay loo dhaqmayaan coldoon oo ahaa samafala muxsina qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inuu muuqaalkan like saaro si uu meel fog u gaaro hadii ay tahay markii kugu horeysana soo booqatana YouTube-kana subscribe saaro boggeena Facebook-na follow dheh waxba yaana weydin ku daalana waxaan la wadaagi doonaa muuqaalo la yaab leh oo laga soo duubay ninkan isagoo markaasi ku dhex damaashaadaya magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland xilli coldoon qoyskiisa markaasi ay murugo iyo tiiraanyo banaanada la joogaan iyadoo gabi ahaanba loo diiday inay xabsiga ku booqdaan coldoon hooyada markaasi uu qabay Cabdimalik Sheekh Muuse Coldoon iyo sidoo kale laba caruur oo ay wadato ayaa soo aaday xabsiga weyn ee Hargeysa kadib laamaha amaanka ilaalinaya xabsiga ayaa rasaas u kala ceeriyay hooyada iyaga oo markaasina sheegay inaan la ogoleyn in loo galo coldoon waxaana loo dhaadhiciyay mid kamid ah xabsiyada iyo sidoo kale jeelasha ama qolalka ugu khatarta badan ee lagu hayo dambiilayaasha galay dambiyada toogashada ee culus subxaanallah saaxiibayaal waxba yaana weydin ku daalana balala daawada muuqaalada ninkan dhalinyarada ah oo horey ka bilaabay xumaantii iyo fisqigii walow markaasi bilaabay isku boorqarin iyo isaga oo sheeganaya inuu khaldamay balse uu toobad keenay culimada Soomaaliyeed iyo sidoo kale culimada diinta Islaamka markaasi wax ka taqaanana waxay sheegeen in qofkii nabiga caaya xataa hadii uu toobad keeno ay mudan tahay in la kharijiyo sheekhow waan dambaabay dibna waan soo shahaatay maqaldamana waa ilaahay waan caraysnaa miyirkaygu joogin xukunkaygu wuxuu noqonayaa haddii miyirkaagu daboolmay oo cadhadu intay kaa daboodatay wax kaa soo baxaya aadan garanayn ama faraxii kaa tambatay oo kelimatu kufrigu kaa soo baxdo adoon isgaranayn sidii ninkii dhihi jiray oo kale allahumma ana rabbuka wa anta allahumma anta muxuu ahay cabdii wa ana rabbuka soo maahay ninkii cadhadu ka tambadatay waxaan u jeedaa faraxu ka tambatay haddii marka ruuxu uu miyirka iyo igmaanka iyo garashada intuu waayo cadhada ka tambatay daraadeed wax ka soo baxayo uusan garanaynin xaaladaas oo kale waa macduur Cabdimalik Muuse Sheekh Oldoon 6 bilood buu xiran yahay kii Nabi Maxamed alayhi salaatu wassalaam ku dhacaayay baraha bulshada isagoo leef ku jira TikTok-ana asagu 20 habeen in ka badan ayuu magaalada Hargeysa raaxaysanaya maynoo qalantaa oo maynoo cuntantaa oo diinteena ma u cuntamaysaa walaalayaal dadkani maanta Umar bin Khattab oo kale u baahan yihiin Umar bin Khattab bay u baahan yihiin miyaan ka liidanaa saxaabi kamid ah saxaabada nabiga alayhi salaatu wassalaam ee yahuudiyadii nabiga cayn jirtay intuu cunaha ku dhagay naqaska kaga saaray 6 bilood oo xaq darro ku xidhnow ah oo khaniisiin u xidhnow ah oo gaalo u xidhnow ah wax diinteena iyo damiirkeenu yeelaya maaha walaalayaal diinteena iyo damiirkeenu yeeli maayo